hambalyo ayaan idin leeyahay waxa laynaga filayaay waa inaan ilaashanno hantideenna guud oo ay laamiyadu ugu horreeyaan hanti guud weeye lacagteennii baa gashay innagaa isku leh waan wada leenahay waa xaqeennii waa xaqiinnii waxaa loo baahan yahay marka in aynu baranno haddaan ummadda Soomaaliyeed nahay waxaan isku leenahay ee dawladnimada ah ee hay'adaha ah ee dhismaha ah ee dalkeenna ah inaynu wada ilaashanno oo dhammaanteen aynu xil iska saarno haddii bac lagu tuuro qofka bacda ku tuuray u sheeg waxaa dhahdaa ku tuurin meesha ka qabo waana al-amru bilmacruuf wannahyi cani almunkar ayay weeye oo sidaasay dadka muslimiinta ahi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر marka dadka muslimiinta waxa loo yaqaanaa qofka haduu dhaxdooda wax ku sameeyo inay gacanta ka qabtaan marka inaynu iska qabanno inta ayna xumaynaysa ayaynu waabana iska qabanay ayaynu halka nabad ku helnay marka isbeddelkan aad aragtaan ee yimid ee nabadda ku yimid dadka isbeddelay qulubtooda isbeddeshay ilaahayna ma beddelaba ummadda ilaa ay ayagu iska soo beddelaan marka dadkeenna hadda gaar ahaan reer muqdisho ayaa fakarkoodii fiicnaaday isbeddel baa ku yimid dawladnimadii bay jeclaadeen amnigii bay jeclaadeen noloshii bay jeclaadeen yacni waxaa waaye sidaasay ku timid isbeddelku sidaasuu ku yimid haddayna ayaga ka imaanin isbeddelku ma imaadeen marka waynu sii wadaynaa halkaasaynu kaga taagnaanaynaa